Ethiopia waa dawlad guun ah oo taariikh fac weyn balse inta badan taariikhdeeda aan ka faa'iideysan dadkeedana u kala qaybsan yihiin qowmiyado iyo qabaa'ilo kuwaas oo ku heshiiyay maamul goboleedyo hoostaga dawladda federaalka ah ee fadhigeedu yahay magaalada Addis Ababa. Haddaba Ethiopiaanka iyo Soomaalida waxa u dhaxaysay taariikh mug iyo fac weyn taas oo inta badan saldhigeedu yahay dhul ballaarsi qoorsi dil barakicin iyo iska caabin dhinaca Soomaalida mar walba ka imaan hayay. Madaxdii Ethiopia waxay ku soo caanbaxeen taariikho kala duwan kuwaas oo diiwaanka u galay intooda badanna saldhig u ahaayeen dhul ballaarsi. Menelik wuxuu ku soo caanbaxay inuu kaalin ku yeesho qaybsiga qaaradda Afrika, Ethiopiana u soo rido saami meel maray. Haile Selassie wuxuu ku guuleystay in uu hawd iyo reserve area la wareego sanadkii 1954. Mengistu wuxuu ku soo caanbaxay laba arrimood oo muhiim ahaa in la xusana mudan: inuu halgankii Soomaali galbeed ku qabsaday boqolkiiba 70 dhulkiisii la haystay sanadkii 1977 kaasoo reer galbeedka iyo reer barigu ay la wada jireen, inuu xasuuqay shacab badan oo aan dambi gelin, kumanaan dalkooda ka barakiciyay, dibna qaxooti uga dhigay. Zenawi ayaa ahaa mid ay Soomaalidu wax soo bartay, soo korisay, kadibna baasaboor ku casuuntay balse ugu abaalguday burbur, barakicin, bahdilaad iyo gumaadkii ugu xooganaa ee abi taariikhda Soomaalida Soomaaliya. Zenawi oo ahaa shakhsi ay barbaarisay dawladdii Soomaaliya wuxuu ku soo caanbaxay taariikhdan u galay in uu guud ahaan madaxdii Soomaalida ku khasbay inay isaga ka tala qaataan ayaha ummadoodana uga dambeeyaan kuwii jamhuuriyaddii Soomaaliya iyo kuwii Soomaali galbeed ee uu madaxa ka haystayba in ciidamada Ethiopia salka dhigtaan xaruntii gaashaandhigga Soomaaliya ee ku taalay caasimadda Muqdisho kuna xasuuqaan kumanaan shacab Soomaaliyeed. Haddaba waxay su'aashu tahay ra'iisul wasaaraha Ethiopia muxuu ku soo caanbixi doonaa oo isna taariikhda u gali doonta? Waxa ugu badan ee uu ku celceliyo in la sameeyo isdhexgal shucuubta geeska kaasoo marka dambe u xubsiiban doona midnimo qaran oo ka dhigta hal dal oo yeesha hal hoggaan. Gaar ahaan wuxuu carabka ku adkeeyay in Soomaali oo dhan iyo Ethiopia hal dal noqdaan, taasoo ujeedku yahay in qarannimada jamhuuriyaddii Soomaaliya meesha laga saaro deegaanada ay gumaysatay Ethiopia warkooda daaye.